السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu wadnaa kulan taariikhi ah oo ku saabsan maansada iyo wixii suugaana oo rag waaweyn oo aan ku noqday halkaasi ay nagala soo qayb galeen inagoo qaybo hore ka soo hadalay qaybtan maantana ay nagala soo qayb galeen maxamed ibraahim adraawi inuu bal mawduuca u soo jeedinaynaa cabdi aadan qays iyo sheekadiisii geedibaabow weliba waxaan jeclayn geedibaabow hadda intaanu maansada bilaabin inuu sheekadiisa hordhacya maasadan geedibaabow ayaa la yidhaahdaa waxaanay soo baxday 82 markaasoo ay ahayd xilli xabsi anigu aan ku jiray markaa xabsiguna waa iska dhibaatadiisaa badnayd markaas qol keliya ayuu ahaa daaqadna ma lahayn horta waa markaa waa askarta iyo dadkaas adigu wixii banaanka ka jooga qolka ayay maansadu u warramaysaa waa raadiye sidii raadiyo idaacadda wararka looga dhagaysto markaa war unbay bixinaysaa imaka markaynu gallo waxay iska dhigaysaan sidii wax raadiyo u dhagaysanaya unbaa gebigiinu ama raadiyo unbaa noqonaya nin warramaya oo ama raadiyo Djibouti baa ka warramaya ama dee kii raadiyo Hargeysa ama BBC da kolba kii aad doontaan ka dhigtay maansadu markaa waxay ka sheekaysaa nin geedibaabow la yidhaha boqor buu ahaan jiray waa sabankaa imaka ninkaa laga sheekeynayey aala boore iyo bucur bacayr iyo geedibaabow iyo raggaasi isku saban bay ahayd markaa meeshan buurxa kaba la yidhaha buu madax ka ahaa wuxuu lahaa barasaabo fara badan oo feelaarow iyo dibkoobaalow iyo arbawheerow iyo garbadiirow way badnaayeen madaxdii raggu dirtaa isagu markaa dee dadkuna markaa caadooyinkiisa waxaa ka mid ahaa marka la guursado gabadha inuu yidhaahdo ii keena intaanad la aqalgelin adugu anigaa soo barakaynaya sidaa daraaddeed safiirtiisu ay u badato ayay ahayd arrintu markaa waxaad maalmihii dambe waxaa ku soo baxaya wiil da'yar walaashiyo way isu arkeenna maxaa ku helayoo maxaa dhacay bay leeyahay way u sheekeynaysaa waxay leedahay dee waa tii layna heriyey imakana waa layla aqalgelaya dabeeto geedibaabow baa ka horeynayo oo dee habeen dambaa lay gelbinayaa bay odhanaysa markaa finish meesha waan ku gacan galay bay leedahay aniga igu hadlay buu leeyay adugu ninkaasaa ninkii shaqo ka qaban doona hadii ilahay yidhahdo markaa sheekadu saasay u socotaa dawaana maaso inkastoo ay iska maaragtay inoo aanay sidaan rabay u dhammaystirayn haddana inagu filan kolley iyo kolley halkani geedkii weeyaan gees madoobe weeyaan gurigii xilka lahaa raadiyowgii guud iyo waa codkii waxgaradkee hirka gaaban iga maqal ummad yahay guyaal hore boqor gaala baa jiray magaca aad ku garatide waa geedibaabow geyiguu xukumi jiray gunyadqata weeyaan isagaa gumeeyee dad gobaa ku noolaa sheekada gunteedii aan idiin gorfeeye warkoo baahsan iga gura isagaa gumeeyey dad gobaa ku noolaa gaashaanka warankiiyo garab way lahaayeen haddii loo abaalgalo dad guday ahaayeen cadowgoodu gulufiyo hadduu gaas ku weeraro guul kala ma hoyn jirin iyagoon gadaafiyo qamin godob sokeeye ah waa kii guul ha seegee garbadiinla kuu dhalay oo magaca guud iyo abtirsiinta ugu gala guddoonkii arlada iyo garqaadkii maroodsaday guudka buurxa kaba iyo gebi buu lo koray dheer guddi buu abaabulay gasaasacadka weeyaan gundhigiiyo distoorkana garbaduuba buu yidhi go-aankiisi koowaad wuxuu yidhi haddaan gubo ama aan gembiyo shay guracaygu waa toos ninka gaabsadee baqa kurka gooye buu yidhi
ka hadlaagaf weeye gowrac mariya buu yidhi goldolooladaydiiyo raadkayga kii gura barhka geeya buu yidhi ciidankayga gaarka ah dirayskiisa gaarka ah badhankii ka gooyo waadna geeri baa tahay anuun baa gargaar iyo qolo gacan u fidin karaa gacal iyo xigtiyo ehel ka gartow dil baa tahay maxaa wacay gobbaanahay gurigayga mooye xero geelahoyda gayiga waa ka xaraan gamaankana anaa iskale maxaa wacay gobbaanahay bulsho ganacsi barataa guul keeni maysee gooni waxulahaanshaha hala gaasiruu yidhi yacnii wuxuu yidhi xoolaha iyo lacagta faraha badan iyo waxaa bulshada kumaba fiicnaba waxa wanaagsan inay bulshada wax la siiyo unbaa fiican oo dadku aniga wax iga soo doontaan aanay cid kale waxba weydiisan mo oo aanay iyagu waxba lahaanin wax iga soo doontaan aniga oo u qaybiyo maaragtay hadday galley tahay iyo haddii ay sunuu tahayba anigu aan u qaybiyo ayaa wanaagsan bu bulsho ganacsi barataa guul keeni maysee gooni wuxuu lahaanshaha la gaasiruu yidhi durba shicibkii guuxiyo dareen iyo sas baa galay guulguul dadweynuhu hadda geesula ciir xoolihii gofana iyo gandibaa candhada tiray galowfooba naasuhu gaagaxoo ma dhiiqaan reerihii gadaanaa gorofkoodii caydhow guulaamo roob iyo onkod iyo gariir ma leh cirkii waa horuu gudhay webigii ganaan iyo shabeel laba gababsee beerihii guraysnaa sida gegida weeyaan isagaa gasiinkiiyo gallaydii ka maanahay gaajadu sad weeye hala golongolo yiri intuu geesi naga dilay intuu gaarisay tiray intii gaban la dhalilaa gugiisii ka baaqsaday gudurigu intuu cunay tiro laguma gaadhe e maydkii goldogob yiil laftaad galay yaxmuuda guray habartii gowrace gacalkii midiyeeye gaanleef isugu dhiib guulguul dadweynuhu hadba geesula ciir bari guurtii loo diray galbeed sahanka loo laal koonfur iyo ukacagubad afartaba garaaco midna guul kama yeelin guulguul dadweynuhu hadba geesula ciir gayigii dadqalatow inaad adigu goysiyeen qudhaada lagu gado arrin kula gudboonaa guulguul dadweynuhu hadba geesula ciir waraabihii gaboobee qurboodkii uu dhalay iyo gacalkiisii qaadeen geedkay u waabeen geli maayo buu yidhi go-ashadu waxay tahay gaban buu ku cunay beri godoba iga taalle eh ha igeyninuu yidhi haddana way la guureen goob kala yagleeleen markay geliya maageen wuxuu miciigalood yidhi qurboodkii aan dhalayow halkan ii gorfayseen mar baan geel ku weeraday godoba iga taallayaan gogasha lay dhigin isna way la guureen buuraha guntooda ay aqal uga gangaameen markay geliya maagan wuxuu miciigalood yidhi qurboodkii aan dhalayow goshani la jeclaateen waa halkaan ku gowracay awrkii guraasay iga daayo godinlaba godoba iga taallayaan gogasha lay dhigin qurboodkii wuxuu yidhi aabba miciigaloolow ina gowso weynow gayigii ballaadhnaa yaa geeri celin kara yaa guura sidi kara yaa geeri celin kara yaa geedi wadi kara yaa guura sidi kara gayigii ballaadhnaa oo adiga ka giigee xaggee baan ku geynaa guudka igu qaado garbaa igu sidsidoo gacmaa igu hayuu yidhi isaguna gadaa noqoy waa geedi baabuu liidarkii hashuu ganay guudka kaga dhacdaa yidhi waxba yaan qoljilicdiiyo gaameelka furuska iyo hilibkaaga goosane maruun yaa gobaaday geesiga kaa rida shicibkuna gadaa noqoy guulguul dadweynuhu hadba geesula ciir markuu dhowr gu toocsaday nin la gegay iskala xayd golo lagu caweeyiyo gogol buu ardaa dhigay goombaar iyo dhunkaal gowracata iyo jiic gacayr buu ku urursaday gardarriyo gar labadaba ka ridaytumuu yidhi go-aankiisii kaa xigay wuxuu yidhi ka guursada anoo gacaladiisaa gurfeeye mooye aqal looma geyn karo waa inaan ka deediyo inay gaari tahay iyo hursadaa gunteedoon anigu soo gardaadsha maxaa wacay gobbaanay raggii gooxa yuururay gibladii iyo carowgii waxa curiyey gaabkii colka lagu gabraartiyo u sarreeyey gaadada magaca aad ku garatidee arbow heerow guud iyo waa ina gubbaad jiray geeraaradiisii guudka kama xusuusniye
haddaan godalla kuu noqo gaasiraay wuxuu yidhi yaa geela kuu jira waxay daba gundhinayeen waa geedi baabuu yaa guudka kuu fira waa geedi baabuu yaa geedka kuu taga waa geedi baabuu yaa gartaada naqi kara waa geedi baabuu yaa guusha dhalin kara waa geedi baabuu yaa gaya hablaha ugu waa geedi baabuu waxaa lagu gunaanaday gabanka iyo darmaantuna magta wuu gudboyn inkastoo garaad iyo geesiyaal aqoon lihi goobtaa ka doodeen hadalkoodii waxa gaday wax magaratadii iyo gurna raacyaashii sacabkay garaaceen guulguul dadweynuhu hadba geesulayo wuxuu sabanku guuraba wuxuu gebidhacleeyaba wuxuu geedi baabuu hadba inan garaara leh naasha hadba inan garaara leh naasaha gashaydiyo hilbaheeda gaarkaa caadada guracan iyo gafka kaga ladaabtaba guhaad geelow baa kacay guhaad geelow baa kacay itaalkiisu waa gobol dherarkiisu waa gibin laba iyo gugiisuna waa 20 gaamuray waa midab guduudlow waa geesi qurux badan wadnihiisu galow male gadaxeesha dirireed gankii kulama loolamo guudo waa walaashii gayaankeedii baa helay godkii meherku wuu dhacay yelbiskeedii baa hadhay iyo geedi baabuu gaaroodi roobliyo meeshu gurisan weeyaan qorax duhurka gudubti iyo hargaadiida weeyaan geed canjeela weeyaan halkay gini la moodiyey keligeed gallubnay ilmadii ka go'bo tidhi waxay goysay gaadada garadii waa walaashii gubayo ku yidhi weer gacaloy maxaa dhacay goonida baroortaa gaar baanu leeyahay halkee ciilka gaaxsamay walaalkaaga soo guday waxay tidhi guhaadow geedii baan ka weerahay gudahaawadkaygii galabaa ka dhiman qura hadalkii gantaar iyo siduu yahay gamuunjii laalaadi gorodii gadanyo ismaandhaaf wuxuu yidhi anoon guyin mudan maysid guudoy inantii garbaha qabay u gadooma reerkii iyagoona isgaranayn indhuhuna guduuteen siday iskugu ooyayeen yani uu ka murugaysnaa arrintii ayay dee indhuhuna casaadeen wey habeenkuu shinkii galay shaarubtii iyo gadhkii xiir garayskii eblaayiyo gambadeedii soo xidhay bilaawana guntiga dhigay gudcur rooban weeyaan kama garatid inantii guuto dumara lagu raac garaadkii balaysnaa gaboodkiisii lagu hooy markay daydkii geliyeen hablihii ka soo gude gaadhkiisi kale eri isaga iyo guunkii gurigii ku soo hadhay gabarh bay la tahay weli isna go-aase kama rogin goodkii waasna gahgahda iyo faraxii qosolkii iyo gallaydhkii daayeer gaboobiya gumayska foolxune ilkihiisii gudintiiya la moodaaye geesaha ilaa goonka baashiiyo muuqda goostambeedyadu gabarh bay la tahay weli isna go-aase kama rogin goodkii waasna gaas iyo shidaal iyo gayi nuur la maaha oo ifku waa gabaabsiye geftinkii uu yuururay gundhiyoo ka soo keli jeembaarta ula gudub isna muu ka geegina sidii gaari raalliya ugu jiibsay gugushii hamuungarayaduu qabay durba gaabsantii dhigay markuu guudka uga baxay gabas baa ku sagatay gogga iyo halbowlaha ogocdiisii kala gow baktigii gees kaga tuur guduudka iyo waagii boqortooyadii guray garbadiilow baa furay dumarkiina guulaha guudana jibkeedii lama gacan togaalayn warkii galabtu waa kaa iyo geedi baabuu iyo geeridiisii iyo goobtii lagu dilay iyo guushii laga helay waxay tahay sheekadu inkastoo ay hordhaceegiina uu cabdi si wanaagsan inooga sheekeeyey aynu hordhac kalena usii samayno aynu aala boore iyo sheekadii uu axmedna ay sii sharxaysan iyada waxa uu cabdi ku soo qaaday waraabihii baa waxaa tidhi meeshii la dhigaba wuxuu yidhi balaa godobaa iga taalla aye waxaa la yidhi waraabaa gaboobay baalkan waraabaha la yidhaa oo carruur badanna dhalay marka inama iyo gabdhaba leh iyaa gaboobay dabeeto waxau yidhi war ma soo socodna ma karayo talena waan talax gabay oo talo iyo socod midna ma karaye bal meel ii sameeya igu masruuftaan oo aan fadhiisto
dabeetoo meel bay way qaadeenoo meel bay geeyeen oo geed bay u waabeen oo wuxuu war meeshan maxaa ahayd magaceedu waa indhabeelay odaygu markaa waxay meel heblaayaa la yidhaa o beri baan wiil ku cunay buyi meeshan waa layga yaqaanaayo ya waraabaan ka ahayoo beri baan wax ku cunaye meeshan iga rara way la yaaceen oo haddana dhanka kale u kaxeeyeenoo dee markaasay meel god bay u qodeen oo meel bay u hagaajiyeen oo muddo ka shaqaynayeen oo de waana culusi oo waa la qaadi kari lahay markay geeyeen buu yidhi war meesha magaceed meel heblaayaa la yidhaaba li oy waar geel baan ku weeraray buu yidhi meeshan ma taqaanaan imise geelaan ku weeraraan meesha ku cun meeshan waa layga raadiyaa nin balaayaa baa jooga godan baa iga tala iyadana iga kaxeeya buu yidhi haddana waa meel kale geeyeenoo buurahay isidhaaheen bal ninka meel buur lahiyo wuxuun geeyo meel bay la doonteen oo saas war meeshuu hebley godin labaa la yidhaha baa la yidhi godin labe godin labe imakaaban ku laayay buu yidhi berigii ugu dambaysay waxaan laayo ayaaban meeshaa gamka dhigo guraaso weliba nin la yidhaha baan carruur ka cunay buu yidhi iyo dad iyo xoola iyo wax ka dhameeyey ninkaasaabay raadinayeen godin labay ka daayeen waa meelkaasoo ku taalla dhinaca maarata dhuusamareeb sukadeeda oo godin laba la yidhaha intaas dad baana lagu laayay berigaas 82 bay ahayd markaa wuxuu yidhi dad baaba nimka ku laayay hadda iga daaya dabeete waxay waayeeninku sidii mayno miyaanu ku haynaa makorun baan nin baa geel raacay oo uu kabalaa markaa gocondhada bahashan la yidhaahdo meel buu kusoo baxay maasuu lugtaasuu qaaday masuu hatana taa kaa laga qaaday markaasuu intuu fadhiistay masarun baa lagu hayn waxay yidhahdeen masarun baa lagu hayna qaban langeerina ma celin karo kuma sidi karo sidan war wuxuu yahay degine dhulka godad baan ka qabaaye guudkaygu qaad garbaha uun kollo iska keena siyo garbaha iyo guudka iyo gacmaha uun igu haya dhul baa taabsiina baalkaa dhul la yidhahdo col baa nahay dee sidii buu baalka u ahanaya weli markaa sheekadaasina waraabahaasuu ahaa gaboobay